Soomaalida Jarmalka degan waa horta Soomaalidu aad bay u badan tahay waliba waayadan dambe dad dhalinyaro ah oo aad iyo aad u badan ayaa soo galay Jarmalku waa wadamada ugu waaweyn ugu qanisan marka la eego Yurub waa wadan aad u fiican laakiin dibkiisu leeyahay waxa la yiri nimcaan walba waxay leedahay naaqusnimay wadataa leeyahay waa sharciyihiisu waa adag yihiin dastuurkiisa nidaamkiisa hadduu ilaahay maayo waa wadan shaqo badan laakiin waxa weeye ma aha sida Sweden iyo wadamada kale ama Ingiriiska oo kale oo dadku qaxooti kaliya ay ku nool yihiin waa la shaqaystaa meeshan waa meel ninka wax baranaya laakiin horumar weyn lagama gaari karo oo sida Mareykanka oo kale maaragtay oo ninkii muddo joogay uu baarlamaanka isu soo sharaxi karo waxyaalahaas uma jiraan meeshan dalkan dad baa iska leh dadka ajnabiga soo galayna waxa weeye ilaa iyo حد كوبان بيجاري كران هرمال كودو كسبية لكن هو وطن عاد ونكسن وحيارة بدنا كفي عن حق عافمات كحق واحد استوى ونكسن شرعية ده ملها هذا شرعية ده حتى كهر مربع الفريد لكن اللي بعتذر وحوي الصومالي دول يجوا بيستبقى أو إلى هاي قبيل عن وحقوق طبعا الصومالي نبدي من كتة كان الصومالي مركز هو قبيل كينيا الصومالي يتوب هو قبيل لكن يجوا حاجة ما يجي يعني جرب بروسي بلا يكره يسوع هيستان يجب يستعوي الصومالي لأنه كي الكتة لأنه كي كيرو كيمي وجرمر هو كتشوتشي حتى واحد مقرأ يسدد كون أيها جرمر قادنا يا شرعية أنا والله فريا لكن لا يحط واحد دقائق مجرد Soomaalida istacweys halkan marka Soomaalida ma dib isku hayaan Soomaalidu kama dhaxayso masalan ba waxa urur ah oo ay ku midoobaan waxa jira boqolaal urur oo jirib kasta mid uu leeyahay waxa moodaa Soomaalida meeshii iyaga wax isla qaban lahaayeen oo iscaawin lahaayeen in la yidhi ku dhexdeena ka dagaalama nin gurigiisa gubaya ma horumar ma gaari karo Soomaalidu waxa weeye iyaga ba isku maqan dal wax lama qaybsan karaan xubadka wax lama qaybsan karaan Yurub oo dhan baa midowday 3 milyan oo Soomaaliyeed oo soo abtiyo maadeer iyo qaraabo ahna waa laga weysan yahay waxa maaragtay waa dagaal way dhacan dadku waa la diriraa waa la heshiyaa waliba Soomaalidu waa dirir jiray ceelal baa lagu dirir jiray dhibaato ma aha dibka waa la soo wada maraa laakiin wax kasta waxa waa laga gudbaa ma aha in lagu regaado oo meesha la iska fariisto Soomaalida halkan marka waxa leedahay ma mideysna Jarmalka Soomaalida ma mideysna Soomaalida halkan ma mideysna malaha waxa weeye boqolaal urur baa jirib bay soo haystaan waxyaalo badan laakiin sida ay tahay isla markay arkaan misbe wada fariistaan sida dhaqanka Soomaaliyeed ah iyagoo aan isjeclayn oo ama qabiil ku dhex jiro ama geedka markay arkaan Soomaaligu maanta Soomaali mukaadinaya markuu u tago way isqabtaan oo way diriraan oo hadhoodii maaragtay madaxiis la galaan laakiin maanta Soomaalidu way isjeceshahay meel bay wada fariistaan shaahi wada cabtaan wax walba laakiin siyaasadii iyo dhibaatooyin badan caqabado badan baa ka hor yimid waliba waayadan dambe siyaasadda aan waxaan oran lahaa dadka meediyada ah oo wax qoraya iyo dadkan muxuu ahaayay saxaafadaha ah iyo dadka raadiyaha iyo telefishinada wayna ka shaqeeyaan Soomaalidu si u midoob lahayd way ka daayaan kala qoqobka iyo kala geedkayska iyo waxyaalaha xasaasiga oo Soomaalida isku diraya ma loo baahan yahay urur Soomaalida ku midaysan tahay halkan waa loo baahan yahay sababtoo wadankan wadamada Yurub haddaadan urur lahayn waxa tahay waxaan jirin sababtoo ah waxaad ka soo qaadaa iyagiiba boqol urur leh biliis urur leeyahay kuwa tareemadu urur leeyahay basaska anu basaska iyo ka shaqeeya tareemada urur baan leenahay gaara gabeershaft waxa la yiraahdo waa ururka shaqaalaha u dooda qof kaligiisa meesha tan waxa weeye dadku ku dhimanaya ummadda Soomaalidu waa u baahan tahay hadda waxa jooga magaalada aan joogo 300 ilaa 400 oo baasaboor muxuu ahaay Jarmal haysta hadda intay midoobaan xisbiyada waaweyn ku tagaan wax kasta ka qabsan karaan wax walba loo ogol yahay sababtoo doorasho iyo cod baa u kala baxaa meelahan laakiin Soomaalida in la isu keeno anigu kuwaan dhalay iyo kuwa aan aqoon wahay magaalada degan kuwa isu keeni waay adoo wax kala sheegaysaa ma fahmid marka dibkeeda leedahay laakiin loo baahan yahay Soomaalidu maaragtay midoobaan su'aasha dambaysa aan ku weydiin lahaa maxaa ugu baqaysaa Soomaalida daawanaysa videogan Soomaalida daawanaysa videoga waxaan ugu baaqayaa in had iyo jeer Soomaalidu ay midnimada ilaaliso midnimada horumar lagu gaaraa gacmaha in la isqabsado wadamada Yurub hadda aan joogno dagaal badan baa soo maray dagaalkii koowaad kii labaad waxay ahaayeen haddii la meedo inta soo milyan baa ka dhimatay maantana kulligood waa hal dawlad calan bay hoos tagaan Soomaalidu midnimada wayna ka shaqeysaa waxaan micda ku jiro Soomaalidu waa dad walaalo ah waa dad geed waa dad muxuu ahaay family waa inay gacmaha isqabsadaan waa in la iska dariyo waxyaalaha Soomaalida isku diraya waa in laga gudbaa waa in dalkooda ay hadduu ilaahay iyo ay difaacdaan نور بدل كيسوق وشقيا إن مارك بدل كذا كشقيا فأنا وباقيا إنه يقولون مرجارا إنه وحبرتان إن ذاتك إسعاونان إن ذاتك نبعت إسمارك تبحوا هاي العاونو
teeda labaad waxaan ugu baaqayaa dowladda Soomaaliyeed amisom iyo ciidamada shisheeye ka xoreynayaan Soomaaliya waa in ciidan Soomaaliyeed la dhisaa waa in nabadgelyada iyo wax kasta Soomaaliya la wareegtaa waa in dhaqaale u yimaada marka uu ilaahay ma yabaan ugu baaqaya laakiin ajnabi inuu ku shaqeeyo gurigaaga adaa nadiifin kara qof kale intuu ku yimaado gurigaaga ma nadiifin karo waa inuu taa ogaataa amisom baa naga xoreynaysa al-shabaab oo ma aaminsan lacagta lagu bixiyo waa in dalka la geliyo waa in ciidamada Soomaaliyeed la siiyo waa in uu ilaahay ma yay midnimada laga shaqeeyo dawladdu waa inay midnimada ilaaliso baarlamaanada talmaantana qabiilka ku kala cararaya oo maaragtay waa inay iska daayaan Soomaalinimada eegaan waa in la isu tanaasulaa waa in la wada hadlaa waxaan ugu baaqayaa okay waa maasanta aad baa mudan tahay aad baa mahadsan tahay waan ku farxay inaad la soo booqatay jarmalka ugu soo booqatay Xasan Deere aad baan ugu farxanay soo dhawaan ku leenahay jarmalka insha Allah jarmalka ninka bartaa kama raago nagu soo noqon ku leenahay